Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan daawadayaashana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan shirkadda Google. Larry Page iyo Sergey Brin waxay ahaayeen laba wiil oo saaxiib ah oo isku galaas dhigta waxayna deganayeen isku qol. Labadaba waxay saaid u jeclaayeen maadada computer science-ka. Waxay ku fikireen inay sameeyaan qalab internet ah oo wax lagu baaro. Waxa u fududaatay inay qalabkii sameeyaan, laakiin nasiib darro ma aysan haysan wax kharash oo ay ku socodsiiyaan mashiinka. Waxa ay go'aan ku gaareen inay iibiyaan. Waxay u soo bandhigeen shirkadda Yahoo ayaa ku gacan sayday ugu jawaabtay uma baahna qalab kale oo waxbaaris. Waxay haysataa Yahoo baana dunidoo dhan ku filan. Markii ay waayeen cid ka iibsata, waxa ay go'aan ku gaareen inay iyagu socodsiiyaan oo ay horumar raadiyeen shirkad maalgashata. Didmo badan kadib oo ay la kulmeen, waxay heleen shirkad maalgashata. Xafiis ka dhigteen qolkii ay deganaayeen. Waxay u wareegeen garaash oo ay 3 kombiyuutar yaaleen. Waxaa la aasaasay shirkadda Google sanadii 1998. Waxaa kobocday shirkaddii, waxa ay yeelatay 60 shaqaale. Shirkaddii ku bilaabantay qolka keliya 2 qof iyo 2 kombiyuutar. Maanta waxay xarun weyn ku leedahay magaalada Mountain View ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Waana netka keliya ee ugu weyn dunida ee wax lagu baaro. Shirkadda Google waa shirkad laga yaqaan caalamka oo dhan. Waxa ay xarumo kala duwan ku leedahay 50 dal oo caalamka ka tirsan. shaqaalaheedu waxa uu gaarayaa 103,557 qof. Mowduuc lamida intaan ku kulmi doono waxaan iga tegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi